soo noqday laba su'aalood oo muhiim ah weydiinaya xayawaanka laftooda roobka ma laga saadaalin karaa sida Soomaalida waxay jireen awlka oo kale abeesada iyo geedka korta arrintan iyada yara waa laga saadaalin karaa way jiraan toddoba shay oo buug aan ku qoray baa jira toddoba xayawaan wax laga saadaaliyo oo Soomaalida ay ka saadaaliso toddobada shay wax kamid ah muscagaleyga maasha Allah iyadoo toddobada shay wax kamid ah muscagaleyga maasha Allah iyadoo waxay bilowdaa waqtiga kaliisha ayay geedka ay saaran tahay ayay socdaal ka soo bilowdaa kaliisha way soo dhaaqaysaa maalin bay inba ku soo daraysaa maalin bay inba ku soo daraysaa maalinta ay salka hoose jirida joogto maalintaasi biyaha halkaasi ka cabisa halkaasi ka cabisa waa wax ilhaamin ilaahay macnaheedu adigana daraasadii cilmi ahaan ku ah aad eegi karto wax ka qaadan karto awlka bahalka la yiraahdo inkastoo dogaa dhibal keena ku yartahay uu ku boodaa marka hore markuu saa ugu boodo ayuu waxay yiraahdaan Soomaalidu meesilku saa u eega qoodha saa uga eega macni wuxuu eegayaa neefkaasi imika dhalan doona bal hadda xilli ma roob buu ku beegmi doonaa oo umushaasi roob bay waxay heli doontaa biyo mise biyo la'aan bay ku dhaco way dhiman isagoo taa ka dabaqaya Xasan Gani ayaa gabigiisan la yiraahdo Madaweyn ayaa wuxuu yiri markuu cawl xilli u deeyay dadku tuu saarnaa aniguna dad baan ahay jiilaalna waa taa maana dabtuurka oo arbaca galay buu sheegay dabtuurku markuu arbaca galo idahayga dayrtii buu waa ka dambarsamku eegaynu sheegay idahaygu dayrtii damanaha shaqaalani dambarsamaha ma afur oo waxaan dib ugu dhigay falagaan dabci aqaan falaga ayaan dabci aqaan ayaan aqaanaa buu leeyahay xilligii uu dii jiray inuu roob ka daba maray uu weydaashay daydana waa dirarkii daydanu sheeganay ayuu macna weydaashay saas oo kale marka xayawaanadaasi way fara badan yihiin buugay ku qoran yihiin